malabka waxa uu ka mid yahay min daawaadka diinteena dhiirigelisay in loo isticmaalo xanuunada. insha Allah maanta waxaan sheegaynaa ilaa 8 faa'iido oo malabka laga helo iyo dadka aan loo ogoleen inay isticmaalaan oo malabka dhibaato u keeni kara. balse marka hore waxaan ku hormareynaa 8 faa'iido oo laga helo ama laga dhaxlo malabka. waxa waaye malabka waxa ku jiro maadooyin antioxidants ah kuwaas oo jirka ka ilaalinayo ama ka ilaaliyo ama ka difaacayo wax loo yaqaano free radicalska kuwaas oo qayb ka qaato qofka in cellskiisa ama unugyadiisa ay damage garoobaan oo macnaha dhaawac gaaro. marka malabka maadooyinkaas free radicalska la dhaxo oo unugyada dhibaateynaya ama dhibaatada u geysanayo ayuu ka hortagayaa si ay caafimaad ahaan u badbaadaan unugyada oo qofka unugyadiisa u badqabaan. sidoo kale maadooyinka free radicalska waxaan ognahay free radicalska jirka inay macnaha mar walba dhibaateeyaan waxay ka qayb qaataan aging process wax loo yaqaan oo ah qofka in yacni si degdeg ah da'da ama sanadka uu wajigiisa ugu muuqdo oo yacni wajigiisa waxay Soomaalida ay dhahan miinaysto yacni wax kadkadood camal oo yeeshto. marka maadooyinkaas jirka dhibaatada u geysto haddii malab qofka uu isticmaalo yacni ayadana yacni wuu ka hortagayaa oo maadooyinkaas ayuu ka difaacayaa qofka yacni marka wajigiisa fresh ayuu ahaanayaa. sidoo kale waxaa ognahay free radicalska dhibaatada ay geystaan waxaa kaloo ka mid ah ku darno yacni qofka inuu waxay ka qayb qaataan inuu develop gareeyo ama uu ku dhaco cudurrada chronic diseaseska sida heart diseaseska iyo cancerska iyo waxyaabahaas. marka cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday in yacni maado malabka ku jirto ee loo yaqaano polyphenols yacni maadadaas ay door muhiim ah ka qaadato inay ka hortagto wax loo yaqaano heart disease macnaha cudurrada heart disease iyo cancerska inay ka hortagto. marka maadadaas oo polyphenolska loo yaqaan baaritaan lagu sameeyo waxa lagu ogaaday sida saxdan polyphenolska yacni sidaas waa shaqadeeda maadadaas macnaha way ka hortagtaa. marka malabka faa'iidadiisa ayay ka mid tahay maadaama maadadaas ay ku jirto. qodobka labaad daa ugu dib intaas qodobka koowaad waa guud ahaan qodobka labaad ama faa'iidada labaad daa ugu dibna waxa waaye malabka yacni wuxuu la dagaalamaa jeermiska bakteeriyada iyo jeermiska fungiga ayuu la dagaalamaa. sababtan waxay tahay waxaa ku jirta maado loo yaqaano phytonutrients. maadadaas marka cilmi baaris lagu sameeyay waxaa lagu ogaaday yacni jeermisyada jirka sida fungiga iyo bakteeriyada yacni inay la dagaalamo inuu macnaha yacni maadadan ku jirto malabka ay la dagaalanto. sababta waxay tahay waxaa ku jirta wax loo yaqaano hydrogen peroxide oo antiseptic ah. marka hydrogen peroxide kaas waxay sameynaysaa oo macnaha malabka laga helo waxay sameynaysaa in ay burburiso ama ay la dagaalanto ama ay disho fungiga iyo bakteeriyada. marka malabka marka asiga faa'iidadiisa waxay u badato waxaa ka mid ah maadooyin ku jiro waaye macnaha maadooyinka malabka oo macnaha ku jiro lagu arkay ayaa waxay yihiin maadooyin effective ah oo waxyaabo badan dili kara. faa'iidada saddexaad ee malabka laga helo waxay tahay healing wounds wax loo yaqaan oo ah qofka haddii uu dhaawac gaaro in si degdeg ah ugu bogsanayo haddii malabka uu isticmaalo uu cabo. macnaheedu ma nabarka in la marinayo laakiin malabka qofka waa uu isticmaalayaa oo waa uu cabayaa. inaan fahantan ayaa rajayna waa faa'iidada saddexaad. faa'iidada afraad waxay tahay malabka wuxuu ka qayb qaataa hagaajinta dheefshiidka ayuu ka qayb qaataa oo tusaale ahaan qofka haddii diyaareeya ama shuban ama wax uu isku arko ama dibriyo uu isku arko ama bag xanuun iyo waxaas wax lamid oo isku arko ama haddii qofka gaas uu qabo kale daawooyin gaaska uu qaadanayo oo ku xanuunsanayo oo kale waxaa lagu taliyaa in malabka uu isticmaalo. sababtu waxay tahay malabka uu ka dejinayaa. marka maadaama dheefshiidka uu saxaaya dadka waxyaabaha aan soo sheegnay isku arkay oo calaamadihii aan soo sheegnay sida dibriyada iyo bag xanuunka iyo shubanka iyo waxyaabahaas isku arkay yacni wuu u fiican yahay malabka inay isticmaalaan. faa'iidada shanaad oo malabka laga helo waxay tahay haddii dhuunta xanuun aad ka dareemaysid sida haddii ay hergab qabto oo kale waxaa lagula talinayaa malabka inaad isticmaasho. markaan oo kale keligiis ma isticmaalaysid oo dhuun xanuunka aad qabto waxaa la isticmaalaysaa shaah kulul waxaa ku daraysaa hal qaada malab ah. sidoo kale waxaa ku daraysaa liin. intaas markaa isku darto subax iyo habeen 2 waqti aad cabaysaa. 3 maalin kadib haddii dhuun xanuunkaas uu keenay virus sida hergab iyo wax lamid ah haddii uu keenay yacni wuu kaa baxayaa oo wuu kaa daaweynaya. marka inaad fahanteen ayaa rajaynaya. faa'iidada lixaad ee laga helo malabka waxa waaye cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday in malabka uu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga 70%. saas darteed haddii uu qofku dhiig kar qabo iyo haddii uu qabinba waxaa lagu taliyaa inuu qaato ama uu isticmaalo
malabka sababtoo wuxuu hoos u dhigayaa cadaadiska dhiigga. laakiin dadka mar walba cadaadiska dhiigooda oo hoos yahay oo hypotension waxa loo yaqaan qaba hyperkamaan hypotension kuwa qaba oo cadaadiska dhiigooda hooseeya ay lagula taliyo. kuwa hypertensionka qaba oo cadaadiska dhiigooda sareeyo iyo kuwa normalka waa lagula taliyaa inay qaataan oo labadaas faa'iido ayuu yahay. faa'iidada toddobaad ee malabka laga helo waxay tahay yacni wuxuu hoos u dhigaa cholesterolka nooca xun, sidoo kale wuxuu kor u qaadaa cholesterolka nooca jirka faa'iidada u leh. okay oo yacni waxaa jirta bad cholesterol iyo good cholesterol waxa la lahaa jirta. marka midka bad cholesterolka waxa la waa LDL-ka. marka LDL-ka wuxuu ku sameeyaa hoos ayuu u dhigaa cholesterolka ama dufinka macnaha nooca xun oo beerka saameeya hoos ayuu u dhigaa. nooca fiican oo jirka muhiimka u ahna oo good cholesterolka la lahaana kor ayuu u qaadaa. cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday in yacni 5.8% oo hoos u dhigo cholesterolka nooca xun ama dufinka nooca xun, 3.3% inuu kor u qaado cholesterolka nooca faa'iidada leh. sidoo kale cilmi baaristan waxaa lagu daro la raaciyay 1.3% in miisaanka qofkan oo hoos u dhigo. inaa fahanteen ayaa rajaynaya waa haddii uu isticmaalo malabka. faa'iidada ugu dambeysa ee 8 sidoo kale waxaa la lahaa malabku wuxuu aad ugu fiican yahay dadka qaba food ulcerska oo loola jeedo yacni haddii tusaale oo kale sokor ah qabtay, inkastoo aan ka hadli doono qaybta oo halista macnaha malabka dadka aan loo ogoleyn, haddana waxaa jira dadka qaba food ulcerska oo tusaale oo kale adigoo sokor qabo haddii yacni food ulcer aad ku aragto lugta inuu kusoo madoobaanaysa ama inuu kusoo jiranaysa inta badan dadka waa laga jaraa sababtoo ah waa halis macnaha diabetic foodka wax loo yaqaano. markaasoo kale sokorta aad qabto hadday tahay midaan diabetic foodka hadday tahay waa lagula taliyaa. laakiin sokortan kale oo caadiga type 2 diabetic oo kale qofka hadduu qabo kale yacni lagulama taliyo. sababtana waxay tahay yacni waxay ziyaadinaysaa sokorta. marka waa arki doonaa gadaal ayaan ka arki doonaa khasaarada. laakiin dadka qaba diabetic food oo yacni saa u jeedaan gas gangrenada midaan hadda hortiina ka muuqato oo kale waa lagula taliyaa inay isticmaalaan oo healing processka rugta inay raysato oo ay u gudbin marxalad in la jaraa ayay macnaha sababtaa ka hortagtaa. marka daraasad la sameeyay waxaa lagu ogaaday 43.3% in dadka isticmaala malabka haddii food ulcerkaas ay qabaan 43.3% ay ka fiicnaadaan. inaa fahanteen ayaa rajaynaya. marka intaas waa 8 faa'iido ee malabka laga dhaxlo. waxaa jirta 2 khasaaro oo malabka leeyahay oo macnaha 2 qof aan malabka loo ogoleen. kow waxa waaye ilmaha ka yar 1 sano looma ogolo malabka. sababta aan loogu ogolaan waxay tahay malabka siisa markii yacni la soo gurayo ama la soo qaadayo inta badan waxaa soo raaca bacteria ama germs loo yaqaan Clostridium botulinum mid loo yaqaan jirto. marka bacteriadaas Clostridiumka ilmaha waxay ku keenaysaa haddii la siiyo ayagoo 1 sano ka yar infantiska calaamadaha soo socda. kow cunug waxaa ku arkaysaa saxarada inay ku dhagto, 2 waxaa ku arkaysaa neefta inay ku dhagto, 3 waxaa ku arkaysaa cunuga markii waqtigii madax ceshadka oo gaar inuu madax ceshan waayo, 4 waxaa ku arkaysaa wax loo yaqaan poor feeding oo ah cunug inuu naaski ama caanihii uu diido, 5 waxaa ku arkaysaa lethargy oo ah tacbaan cunuga tabardaro fara badan inaa yacni aan ku aragto tabardaro fara badan inaan ku aragto cunug inuu weak yahay wax tabar oosan lahayn. qodobka ugu dambeeyana waxa waaye cunuga oohintiisa ayadana waa mid weak ah oo waxaa ku arkaysaa cunug inuu si tartiib daciif ah oo inuu ilmaha kale la mid yahay oohintiisa yacni cunug yacni xanuunsan oo kale markuu ooynaya ay ka dareento. marka maadaama oo yacni bacterias ay soo raacday dhibaatooyinkan ay ku sababta ilmaha 1 sano ka yar waxaa lagula taliyaa hooyooyinka inaysan siinin malabka. ilmaha qaar way siiyaan, hooyooyinka qaar way siiyaan. marka waxaan kula talinayaa inaysan siinin malabka. dadka waaweyn hataa maadaama jeermiskan banaanka oo ka soo raaco dadka waaweyn hataa ayaga hataa waxaa lagu arkaa matag iyo shuban iyo markay aad u isticmaalaan. dadka qaar saxarada ku dhigto, dadka qaarna way shubmaan. waa lagu kala duwan yahay. dadka qaar yacni aragooda macnaha xoogaa daciiftinimo ay ka dareemaan. dadka qaar waxa waaye muscle weakness ay dareemaan, murqaha tacbaan ka dareemaan. bacteriadan waxaas dhan keenayso oo soo raacaysa malabka. marka sidoo kale looma ogolo qodobka labaad dadka qaba diabetic ama xanuunka sokorta qabo looma ogolo inay malabka isticmaalaan. hore waxaan soo sheegnay diabetic food ulcerka oo haddaan soo sheegaynay yacni gas gangrenada hortiina ka muuqato oo loo isticmaali karaa. sax waaye yacni lugtaas inay daawoodo way ka qayb qaadaneen. laakiin qof qabo sokor dhan kale marka laga eego negative feedbackgeeda ama dhibaatada khasaarada ee leedahay sidoo kale waxa waaye in maadaama qofkan sokor oo qabo malabkan wuxuu ka samaysan yahay sugar oo wax macaan u yahay sokorta kicinaysa. marka dadka inta badan sokorta qaba lagulma taliyo
inaa fahanteen ayaa rajeynaya insha allahu tacala casharka intaas kusoo koobeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.